ليش نينك دارود محل قرّه ورنينك دارود أنا مو ملهنا إنه دارود هرب جيدا رأي شيء يعني أكو كسومين نين دارود هرب جيدا أنا مسوارك حتى مرة عاني هرب جيدا مسوارك مركا الله يابله والله قد دوبي مدحوينها وقتيgiisa uu dhamaaday farmaajo laakiin dadka sida weyn u yaqaan waxay sheegayaan xilliga uu marqaamo ama goorta uu caba in wuxuu doono uu ku hadlo isla markaana biyaha ay ka tusaan in uu dagaalamo ama wax uu dilo arinta la yaab kale waxay tahay faalayaasha iyo waliba saaxiriinta ay leeyihiin asaga iyo Fahad Yaasiin inay u sheegeen inuu yahay madaxweynaha soo socda isla markaana xoog u adeegsado inta ay wada socdaan Maxamed iyo Fahadna inaan laga adkaa karin kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxa idin leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareeya sheertana ku qabta cid walba muuqaalka la gareeysa sheer gareysana waxa rabbi subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeena umuuraha leeyihiin ilaahay inuu saala ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaada uu barakeeya rabbi subhanahu wa ta'ala bal adduunyo ay sifileen inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyo inta awlaadoonkaana ilaahay awlaad baariya ha siiyo inta guurdoonkaana guur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee baweyna ha siiyo qof walba muuqaalka sheerta ku qabta la gareeyana waxa rabbi subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeena dambigood iyo dambiga waalidkood ee been u dhaafa rabbi subhanahu wa ta'ala uu ku cazuma jannatul firdaws ala xaasidka waxa leenahay wa min sharri xaasid idha hasad al xaasid la yaflah bi in allah al karim waxa ku dambeeyay hoog iyo qasaaro rabbi subhanahu wa ta'ala waxa weydiisanaa Soomaaliya in hogaamiye fiican uu siiyo baraha bulshada iyo waliba goobaha ay ku kulmaan dadka Soomaalida waxa si weyn u hareeyay khudbad uu jeediyay madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Danni kaas uu kaga hadlay sheekooyin iyo hadallo isweydaarsadeen madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadka qaar oo Farmaajo taageersan ayaa si weyn u naqdiyay hadalka uu jeediyay khudbadda madaxweyne Saciid Danni laakiin waxa la hayaa dhammaan codadkaas oo duuban kaas oo ku wajahan hadallada waa hadallada xanafta leh uu ku yiri madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale Farmaajo ayaa laga duubay asoo caynaya in badan oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed isla markaana ku adkeysanaya buugga uu qaranjimintiisa jaamacadda Mareykanka uu qoray kaas uu ku aflagaadeeyay beelaha Hawiye Digil iyo Mirifle iyo qaybo badan oo ka tirsan beesha Daarood ay ku jiraan majeerteen iyo sidoo kale beesha Isaaqi in badan oo kamid ah beelaha Soomaalida tiimka warfaafinta madaxtooyada Puntland ayaa qorsheynaya inay baahiyaan codadka laga duubay madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ana codad hadii la maqlo dadka qaarkiis ay la yaabayaan ayadoona sidoo kale dadka maangaabta ay ku taageeraya kaligiistaliinimada madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay dhagaha farta gashan doonaan waxaase dad si weyn u yaqaan madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay sheegeen in xilliga madaxweynaha uu marqaamo ama uu qayilo ama xilliga cabitaanka ama qamriga uu cabo ee ka tustay in wuxuu doono uu ku hadlo isla markaana sidoo kale ay ka tusaan inuu dagaalamo waana mid keentay in madaxweynaha Puntland iyo dad kale oo badan taleefanada uu ka waco xiliyada qaar isla markaana uu ku hadlo waxaysan ku hadlin caruurta yar yar ee Soomaaliyeed hadallada la yaab kale ee madaxweynaha Puntland uu ku yiri waxa kamid ah in 8 Febraayo la gaaray aysan waxba dhicin sidoo kale wuxuu wacay xilligii la weeraray hotelka ay degnaayeen madaxweynayaashii hore iyo weerarkii lagu qaaday ra'iisul wasaarihiisa 3 sano iyo Xasan Cali Khayre Cabdiraxmaan Cabdishakuur Cabdikariin Guuleed iyo xubno ka tirsan baarlamaanka lana doonayay in lagu qaarijiyo asoo xilligaasi jeejeesaya waxa sidoo kale hadaladiisa kamid ah inaysan jirin qabiil ama koox wax ka qaadi karta wuxuuna ku faanay in Baydhabo Digil iyo Mirifle uu ku soo xiray Hawiyana Muqdisho uu ku gumaaday isla markaana cid asiga aan ahayn madaxweyne aysan ka naqanaynin Soomaaliya ana qubarada ay sheegayaan in wax weyn qamriga uu u dhibo madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale cunista qaad kuna kamid yahay dadka sida weyn u fududaada xiliyada balwadaha ee leeyihiin ay isticmaalaan waana mid keentay in si weyn u daldalmo waqtiyada qaar madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday Farmaajo dadkana koolka uusan ka dhaafin xiliyada uu isticmaalo balwadaha uu leeyahay arinta la yaab kale waxay tahay dadka saaxiriinta iyo kuwa wax falay madaxtooyada Soomaaliya u jooga Farmaajo iyo Fahad Yaasiin waxay u sheegeen inuu yahay madaxweynaha 4 sano ee soo socotay iyo waliba 4 kale xigta laakiin la doonayeen awood uu ku muqooniyo dadka waxayna kula taliyeen in si xoog ah uu qabsado Puntland iyo Jubbaland laakiin waa midda ilaa iyo hadda Farmaajo u suurtagali la laakiin saaxiriinta iyo kuwa faalowga waxay sheegayaan inta ay isla socdaan Fahad iyo Maxamed inaysan jirin cid Soomaaliyeed oo ka adkaan karto isla markaana dalka ay maamulayaan waxay hilmaameen hogaanka maanta waqtigooda uu dhamaaday in Rabbi subhanahu wa ta'ala Qur'aanka uu ku sheego uu yiri walaa yuflihu saahiru haythu ata waxaan ku iri war madaxweyne suuma ogi 8 Febraayo inay soo dhowdahay oo deadline-kii doorashada uu soo dhow yahay maxaa dhacay yiri waxaan iri
soomaha boon inta ka horeysa in at least heshiis la gaaro processka uu socdo warqaddii xasan sheekh uu qoray oo kaleeto oo ah in dowladdan ay tahay dowlad aanan waxyaabaha masiiriga oo qoran tahay waan u malaynaa internetyada inaan ku aragteen oo muujinaysa inay dowladdan ay doorashada maamulayso qor warqaddii xataa koobiyan watay annagoo ajendahay noogu jirtay lama isa gaarin gadaa garbaharriya dhaaf weyn warqaddaana qor horta warqaddii iyo markuu maqlay iyo 8 February oo wuxuu yiraahday anigu waxaan isleeyahay danigayga soo waxaaba ku dhalisay inuu tago 8 February inuu proof gareeyo inay 8 February wax dhaha jirin wuxuu yiri 8 February wax dhaha ma jirto dastuurka iyo ogol waxaan dastuurka intee ka ogol yahay baarlamaankaba midka bedel midka maxaa inta mid kale ka imaanayo waa sii jooga horta meel hadda iska manaanaanays ma jirtee kusimo waa okay laakiin ma qaadan karaan qaraaraad masiiriya hadda inaad